waxaan shaki lahayn dawladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa laakiin waxaa la rabaa in duqeyda culamaa udiinka dadka waxgaradka ah arrintaas ay wax badan ka qabtaan ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado aan barino ilaahay dabadeedna aan soo noqono gacmaha aan isqabsano koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba hal iscafiyo ilaahayna hal baryo ayaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii aan horta ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tagi mayso nagana kici mayso horta ilaahay loo soo noqdo diinta islaamka iyo ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad marka ku xigta oo hal baryo ilaahay hal baryo oo quraanka hal akhriyo oo qof walba faatixada qofkii yaqaan faatixada inta akhriyo inta soo goorto daba goor uu yaraan inta akhriyo ilaahu rabbiyo dalka balaayada ka dulqaad hayira meel uu joogaba marka ku xigta hal iscafiyo ilaahay cafis hal warsado si ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan iscafinaa